Dowladda Turkiga oo diyaaradihii ay dunida ka yaabtay ee Bayraktar TB Soomaaliya keenaysa duqeymo xoogganna dalka ka geysan doona waqtiga ay soo galayaan oo aad u dhow ayaan kula wadaagayaa daawado iyo xogo kale oo ka dahsoon oo ay dowladda Turkiga ka samayn doonto howlgallada ka soconaya gudaha Soomaaliya ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab balse marka hore daawade ka hadalka xogtayda waxaan ka codsanayaa inaad subscribe taabato like dhahdo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada muuqaalkan like dhe mar waliba waxaan u taaganahay soo gudbinta xog xaqiiqda ku saleysan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka iyo dibadda. Dowladda Turkiga ayaa hadda toos ugu soo biiraysa duqeynta dhanka cirka ah ee lagu beegsanayo dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab sida uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in markii hore ay duqeymaha ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab ay kaliya garab ka helayeen dowladda Mareykanka balse xilligan wixii ka dambeeya ay si weyn garab uga helayaan dowladda Turkiga oo ah dowladda inuu walaalaha nahay oo ciidamo kala duwan ee Soomaaliya u tababartay sanadihii ugu dambeeyay haba ugu horeeyaan ciidamada kala ah Gorgor iyo sidoo kale Harmacad oo si weyn wax uga bedelay xanaankii ciidan ee dowladda Soomaaliya. Wasiir Fiqi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalkan ee Turkiga ay keenayaan diyaaradaha ugu casrisan iyaga oo si weyn dagaalka uga caawinaya waliba qaybaha hawada oo si weyn looga duqeynayo ururka Al-Shabaab waxaana si weyn u garab taagan yihiin ayuu yiri ciidamada xoogga dalka ee howlgallada ka wada furumaha dagaalka ah ee gobolada kala duwan ee dalka sida gobolada Galgaduud iyo sidoo kale gobolka Hiiraan oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn halkaasi uu dagaal ugu dhaxmarayay ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo ay garab siinayaan macawisley oo ah dadka deegaanka oo si weyn uga qayb qaadanaya dagaalka. Markii la arkay in dadka Soomaaliyeed wax iska celi karaan waxa garab istaag u muujiyay ayuu yiri dowladda ay ka mid tahay Mareykanka waxana ay si weyn nooga caawiyeen ayuu yiri xagga cirka oo ula jeeda duqeymaha oo ay ku beegsanayaan ayuu yiri ururka Al-Shabaab markii uu meel isugu tago. Haddaba dowladda Turkiga ayaa ku soo biirtay oo hawada ka caawinaysa xilligan wixii ka dambeeya walow ay jiraan ayuu yiri dowlado kale oo sirdoonka ka caawinaya xagga ayuu yiri dagaalka waxaana sidaasi u sheegay Axmed Macalin Fiqi oo warbaahinta la hadlay goordhoweyd. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ay jiraan kooxo gaar ah oo ka soo horjeeda horumarada laga gaaray howlgallada socda ayuu yiri isla markaana doonaya in ay si weyn u xagal daaciyaan abaabulka socda ayuu yiri walow uusan carabaabin. Wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa tilmaamay in aysan arintaasi niyad jabin doonin ayuu yiri ayna sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada iyo gulufka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Kooxo saddex ah ayaa shakigaas qaba ayuu yiri. Kooxda koowaad waa argixisada nafteeda ayuu yiri ayaa waxaas wada. Kooxda labaadna waa koox buunbuunisa shakiga qabta ayuu yiri waa kuwa ku fashilmay ayuu yiri in ay xilligan deegaanadooda ka xoreeyaan ayuu yiri. Haddaba xilligan wixii ka dambeeyay waxa la leeyahay waxa bilaabanaya in dowladda Turkiga ay duqeymo xooggan ka geysato Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay si weyn u soo saarayeen ciidamo kala duwan kuwaasi oo ay doonayeen in ay si weyn uga qayb qaataan dagaalada ka soconaya dalka oo ay doonayeen in gobolada qaar lagu xoreeyo iyagoo dagaalkan qayb weyn ka ah waxaana ka mid ah ciidanka Gorgor oo ah ciidan u tababaran qaab commandos-ka la yiraahdo oo si weyn dagaalka u horboodaya. Sidoo kale ciidamada Harmacad oo ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliyeed
ayaa iyagana qayb weyn ka ah dagaalka iyo sidoo kaleeto nabadda. Haddaba dowladda Turkiga oo si weyn loogu yaqaano horumarada xagga ciidanka iyo sidoo kaleeto qalabka casriga ah ee lagu dagaalamo ayaa markaan doonaysa in diyaaradaheeda weliba kuwa dunida ugu casrisan ee xilligan jira oo ay si weyn uga yaaban yihiin dowladaha horumaray ee dunida kuwooda hubka casriga haysta ayaa xilligan waxay si weyn u garab istaagi doontaa ciidamada dowladda iyagoo doonaya in ay duqeymaan horey loo arag ka geystaan deegaanada qaar oo xilligan gacan ku haynta ururka Al-Shabaab ku jira. Haddaba qaybo ka tirsan gobolada dhexe ee dalka ayaa xilligan waxa ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo sidoo kaleeto macawisleyda oo garab ah oo doonaya in ay gacan ku haynta kala wareegaan deegaano ka tirsan maamuladaasi. Wixii xooga ay ku soo kordha daawade waan kula socodsiin doonaa, balse waxaan ka codsanayaa daawade inaad subscribe taabato channelkeena, like dhahdo oo aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada.